hay-aduhu dulqaadiyo door bay cayaareen hay-aduhu dulqaadiyo door bay cayaareen daawiyo hoy iyo fuud bay diyaarada noogu daadsheen dooma lagu gudbaabay degdeg noogu keeneen haddaan nahay dadweynihii dayartiila caawiyey abal doori mayne hirdo waynoo dadaashay haddaan nahay. Since its collapse in 1991, Somalia has not had an effective central government. Social welfare and access to basic rights hardly exist in the country. Thousands of Somalis have fled the country in the last decades. Somali refugees live all over the world and form a significant diaspora movement. Many have a strong desire to support their home countries. This is why Herda started. deegaanka ka hor hirda ma lahayn hanaqaad waxbarasho iyo hanaan waxbarasho toona marka waxaan u arkaa si aad iyo aad dareenkaygu aad buu ugu kacsan yahay markaan muxuu ahay aan fiiriyo hawlqabadka iyo waxqabadka hirda ay ka wado xagga waxbarashada ee degmadan Baardheere laakiin waxaan jeclaan lahaa in macallimiinta la dhiirigelin intan ka dheer loo sameeyo in muxuu ahay tababaro joogto ah loo joogteeyo tababaradooda si ay u noqdaan macallimiin leh quality ama waxqabad leh bulshadana anfici kara iyagana wax istari kara ardadana wax istari kara Herda's been building schools in the ghetto region since 2000. They built a primary school in the Bardera district and did the same 2 years later in Abu Dwak and the Galgudud region. There is also an adult education program. Herda tries to teach the parents how to read. In this way, they experience the benefits of education firsthand. This is a motivation for parents to send their children to school. أنا سكول محوادين سكولك مركاني كإمادة نقول ماليسي أنا سكولك أبي مهدا شقيسة المرمرة كابحنا بس ساس وايودي أي أنا نواش شقيسة لقى حان دلدلا نوريد دان قادة دادك وحو ديوه بلوكيتي دادو ديوه بلوكيتي ما قادة كرتا عمرت بلوكيتي لا واحد بان قادة لا تقع مودن قادة لكن سكولنا لقيه أو جعليات أنا جعلي سكولي دكسي. محاضر مالينسا نروش على الدنبي وحين نغنيس. نعم. وحنا نغنيس نلشي. دتك دود القرآن كي وسنا أنا القرآن كم كجواب كرساسا نعبينا مك. يالك في إنجليزي وما حاسي يقول هلا أنا جواب تاس ما هاي مكتة. جواب تاس إنه هاي ربا مك في إنجليزي كي هي 10 برتا ربا. The primary education program is for children between 6 and 14. With this program, Herda improves their chances for a better future. How many boys are there in the picture? There are 6 boys in the picture. How many of them are there sitting down? 3 of them are sitting down. waxaan ku bilownay 3 fasal iyo 4taas macallin iyo kuraas la'aan kadib waxaa bilaabatay markaas Oxfam Novi markii ay gacan siisay in waxbarashadii ay hana qaado oo iskuulada si tarbataan ilaa ay ka gaaraan ilaa 4 iskuul oo ku taala degmada Baardheere iyo 1 iskuul oo ku yaala Abu Dwak. Tida ardayda guud ahaan markii la isku daro oo ay gacanta ku hayso ururka Hirda waxa weeyaan 2672 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
التصورات هذه قبل population أما dadweyne ka badan 100,000 oo qof oo aan lahayn isbitaal shaqeynaya oo aan lahayn xarun caafimaad marka laga reebo 2 MCH oo aan lahayn bukaan socod eegto oo aan lahayn meel haddii qofku dhaawac gaar loo diro oo aan lahayn goob public oo lagu dhalo oo aan lahayn goob haddii uu shuban dhaaxaata dadka toos loo geyn karo aan lahayn marka sawirka qofkaas waxa suurtagal ah aad u badan tahay badan oo dadku badidood in ay dhaxda ku sii dhintaan inta ayna gaarin ba meesha wax looga qaban lahayn hirda waxbarashada meel bay ka gaartay laakiin qofka haddii uusan caafimaad qabin ama caafimaad uusan haysan waxa uu barnay waxbarashada caafimaadku way isku xiran yihiin waxaan doonayaa aan isleeyahay wax badan bay ka tari lahayd hirda iyo cid kale to danqanaysa ama dadkan macnaha u naxayso dhan in isbitaalka degmada oo horay u shaqeyn jiray laakiin hadda aan shaqeyn la howlgeliyo عنقي أنت شان إيه فعلًا يدي إذا إنك فعلًا أنت شان بلد عمال أنت هذيك جرنا عنقي عفمان إذا أو إذا إنك فعل هذا أنت اللي شان واجد أنت شان هنوع أو إلهم ما كذا أنت مشاري ولا قاعدة وقال إذا إنك فعلًا ده بلاي ما هو فعلًا ilmaha waxa laga rabaa greenka inay soo galaan marka yellow markay joogan waxay noqon karaan xaggan way aadi karaan intan way soo aadi karaan in macnaha ciyaalka redkan laga soo wado oo greenkan loo soo daabulo marka saas waa ujeedada ugu weyn oo macnaha laakiin marka hadda waxa cunuga markii la keenayo macnaha bil kasta waa la miisaamaa wixii fiicnaado waa la sii diraa kuwa cusubna waa la qabtaa oo ayagana muwaagan iyo miisaanka ayaan macnaha ku dooranaa ilmaha da'da ilmaha aan qabanayna waxa waaye 6 bilood wixii ka weyn 5 sanana ka yar halkan waa qaybta dhalinka waxay ahayd waxa loogu talagalay haweenka uureyda markay saacada u ogaanaa sidaas oo kale MCH ka ku xiran yihiin caruurta markay haystaan oo kale MCH ka maxay ahayd quudinta saas oo kale looga warhayaa uurey markay noqoto waa la soo xiriirtaa dhaliin markay gaarto saacada ula socona waa la soo xiriiraan waa talaalada markay u dhamaadaan kadib hadii maxay ahayd xanuunka la soo kulmo ama iyadoo nuujinayso saas oo kale wixii dawooyin u baahato inta waa laga siiyaa tan kale qaybtan dhalinka ah aniga gabadhaana isla dhalino Somalian healthcare leaves a lot to be desired, and this is where HERDA steps in with a training program. The program gives graduates the knowledge they need to assist at times of emergencies, natural disasters, and outbreaks of diseases. Somalia has a low AIDS infection rate. Here's a chance to prevent the disease from further spreading. HERDA hands out information and education about this disease without losing sight of the sensitivities within the community. Besides the campaigns on HIV and AIDS awareness, HERDA is also very busy to educate the women about the consequences of female genital mutilation, or FGM. dhalma ahaan wuxuu geystaa khatar oo daran ama cudur oo ku dhaco habdhiska taranka ama buro ka soo baxdo meesha waa marka gudniinka oo maxaa leeyahay reebaadiyaha markuu cunug ka soo baxayo wuxuuna u geystaa khatar oo cudur iyo infection iyo maxaa leeyahay cudurrada ku dhaco habdhiska taranka marka gudniinka reebaadiyaha iyo kan reemagaalka waxaa roon kan reemagaalka inkasta uu kasi fiican yahay kan sunnaha oo la talinayo gabdhahan waxay ka mid yihiin gabdhaha dugsiga caafimaadka dufcaddii afraad dhameeyey haddana u ah volunteer hirda public health sector marka hirda haddii aan waxyar brief ka sameeyo meel MCH waa leeyihiin iskuul caafimaad way leeyihiin marka waa connection waa u dhaxeeyaan ayaga oo waa dad ka faa'iideysto waxa ay hirdo soo bartay si aysan oga lumin haddana volunteer mutatawiciin u ah hirda
waxaan ka baxay iskuulka caafimaadka ee Hirda oo ka qaatay shahaado. Ardayda ka baxday shahaadada waxay u baahan yihiin waxyaabo badan sida buugaag ay ka tixraacaan casharada caafimaadka, sida laboratory u gaar ah caafimaadka, sida isbitaal ay ku qaataan practicalka oo kale. Herda's Women Empowerment Center also gives microcredit loans to vulnerable women so they can set up their own businesses. The main objective is to assist the women in living as an independent, self-respecting individual in the community and to enable them to contribute positively to the rebuilding of Somalia. magacayga waxaa la yiraahdaa Xaliimo Cabdullaahi Buure. Deemanka waxaa la isiiyay sanadkii hore. aniga magacayga waa Idil Cali Gaas. Deyntana waxaa qaadanaya hooyada la jecel ursamay. deynta faa'iido weyn ayaan ku aragnay oo anigu ku arkay aniga shakhsi ahaantayda. markay ugu horeysay waxaan anigu lahaa miis yar baan lahaa $300 baan waxaan amayn baa ii saarnayd. laba waji baan qaatay. wajiga horeeyo hal miis aan lahaa, wajigii labaad oo leysiyay sar baan soo galay oo miiskii waan ka soo tagay, kor baan u kacay. qashin walbaan hadda gadaa, waxaan haynin hadda male, wax walba oo dhan baan helaa hadda oo wajigii labaad. meeshan activity-da aan qabno oo sector-ka waxa qabto waxa waaye farshaxankan aad arkaysiin waa caw iyo maartay geli iyo wax alla wixii meesha hadda ay yaalaan dambiisha xaaqamaha wax kasta waa la sameeyo, waxa sameeyo gabdhahana sameeyo. Peace and human rights awareness are vital to development. Herda organizes community events like an emergency and peace conference. People have discussions on how to enforce human rights, how to deal with conflict management, to reconcile their clan and have an open discussion on gender issues. One of the most remarkable events is the sport event to promote peace. Sporting activities create friendship between people and different communities. Agriculture is the dominant sector of the economy of the Bardera district. Farming is done the traditional way, mostly because there are no modern means. The Herda farm was established in 2003 as a demonstration farm. Farmers come here for demonstrations, and whenever there's a harvest, they can use Herda's tractors. When the harvest is good, the income generated is used to support other Herda projects, like the health clinic or the orphan program. The farm supports about 100 families with work and food. warbixinta may siinsi hayeen warta buurada tawaaka tuulada warooka degan lama waroodo warta in kuwina tan ee marka awal buud ay neen qoday ilaa waqtuuna mar qodna hirdiya neen qodi ku sokona wal kale neen koy ma aragna wartana hadda noo gurti bi fayle ma ka jira hadda naftiya baan oomuna waro dhabaan qabna in neen qodo falaana hirdi ya awal buud ay neen qodi ya ku sokona wal neen koy hadda ay adoo war neen qodi ma le waro kale wal qodi laakiin wartaan una ma qodo hadda ma baahna in wartana neen qodo ya hirdi ayaan ku baahna. Low capacity of staff and funding from different donors are a threat to strong civil society. Herda offices in Somalia and in the Netherlands are working closely together. Because of the effort of the Dutch office, Herda was able to grow to its current size and success in Somalia. However, Herda faces several challenges. The needs in Somalia are far bigger than Herda's project can help lift. There's almost never enough capacity, equipment and funding. What Herda needs now most is sustainability. All Herda staff members, both in Somalia and in the Netherlands, are very committed. Together, they are dedicated to development by sharing. أبر وين قرياي نوبب وحقب شديدي يهردا قلقال ديدي قنع سنان تبقي البان وذناي وحا قدر المذن أبر وين قرياي نوبب وحقب شديدي يهردا
qalqaaladeediyo qanacsananteed qiral baanu wadanahay